الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan soo gaarnay fasalka uu yidhi faslun ee ku saabsan fi luqatati baadidan la helo iyo xoolaha dadkii lahaa ka lumay ee qofku uu helayo. baadidu waa laba qaybood, ama waxaa dayacanee meel bannaana laga helayo, inuu maal yahay iyo inuu aadamo yahay. haddii uu maal yahayna luqata baa la yidhaahdaa, laamka la godo, qaafka iyo taadana la kordhigo, alluqata. haddii uu bini aadam yahay, waxaan meesha cidlada ah laga helayna waxaa la yidhahdaa laqiid. qaafka waxaa ka dambeeya yaa. labadaa cibaaro ay ku kala duween curfiga culimmadu, waayo axkaamtoodu way kala duwan tahay. inaad xoolo meel cidlaha ka hesho iyo inaad qof bini aadama meel cidlaha ka hesho, gaar ahaan ilmo yar aad meel ka hesho, labadabana insha allahu taala cashirkeenna caaway ku jiri doonaan axkaamtoodu. haddaba luqato waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin maal lumay, qofkii lahaana ka lumay, oo cid kale ay soo qaaday oo heshay baa la yidhaahdaa. saa darteed wuxuu yidhi waidaa wajada, haddii uu qofku helo luqatatan baadi meel taalla, haddii uu helo fii mawaatin meel cidla-ana wuu ka helee, guri dadeed iyo xafiis dadeed ma taal, meel xaq mushtarag oo dadka ka dhaxaysa ay taallo, aw ariiqin ama waddadiiyo jidkii la wada marayay buu ka helay, falahu wuxuu leeyahay qofku akhduhaa inuu qaado, aw tarkuhaa amuu isaga tago. wa akhduhaa inuu qaadaa awlaa ka habboon min tarkihaa ka tegitaankeeda, in kaana waa haddii uu yahay calaa hiqatin kalsoonaan min alqiyaami bihaa, xaqeedii inuu fulinayo hadduu isku kalsoon yaho oo is-aaminsan yahay. halkan mualifku wuxuu kaga hadlay xukumka baadida qaaditaankeeda. haddaba luqatada iyo bannaanka midda taalla qaaditaankeedu wuxuu leeyahay inaad qaadaa fiican bisharti alamaanati, inaad aamin tahay baa shardi ah. laakiin waad isaga tegi kartaayoo haddii aadan qaadin oo intaad indhaha ka fiirisa aad iska dhaafto, dembi ma aha baadida xoolaha. arrintaa xukumka mualifku uu sheegay waa madhabka fuqahada shaaficiyadu sida ay qabaan. laakiin fuqahada shaaficiyadu marka la qaadayo waxay u qaybiyaan laba qaybood. qasadka iyo ujeeddada aada baadidan u qaadayso buu xukumkeeda sharcigaa ku xihan yahay. waxaa kaloo xukunku uu ku xihan yahay nooca baadidu ay tahay. waxaa kaloo saameyn ku leh waxaan baadideeda helaysa inta uu leegyahay. haddii baadidu xoolo lumay aada qaadayso, ujeeddadaadu waa haddii ay tahay xoolahan meesha yaalla qaado, laakiin aanay kugu jirin ciddii lahayd dayday, eeba xoolo baadi ood meel cidlaha ka heshay ee qaado, hareeraha intaad iska fiiriso hoosta jaabka gasho hadday arrintu tahay, waxana maal manfacale uu yahay, xaaraan weeye qaaditaankaas. waayo baadi aada qaaday oo xukumkii iyo waajibkeedii aada fulinaysa meehee, waa nin xoolahan ay u haadeen oo meel cidla-ah ka helay oo isagu inuu booba rabo, xukunkii baad qaadanaysaa. saa darteed qasadka koobaadi waa inay ujeeddadaadu tahay xoolahan balbadbaadi, ciddii lahayd in la helaa laga yaabaa ood ku sintee. arrintaa waxaa loo deliishadaa xadiid imaamu muslim wariyo zayd ibni khaalid radi allahu canhu wa ardaah, nabigu sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay man aawaa daallatan fa huwa daallun maa lam yucarifhaa. ninkii baadi soo qaada isaga laftiisaa nin baadiyaysana, haddii inuu yaboohiyo ama yaahdiyo ama dadkii lahaa raaraadiyo auna ku talagashanayn. baadidaasi ama maal kale ha noqoto ama xoolo nool ha noqoto. taa macnaheedu waxaa weeye xoolahan dad bay ka lumeen, waxaa laga yaabaa iyagii inay soo maraan
ama qof kaloo aamin oo gaarsiin lahaa uu soo maro haddiiba intaad soo marto markaad maraysa dad maraya meesha lugta aad yaraha saarto inta la dhaafayo markii lagu dhaafana hoos intaad u qaadataad hoosta gashatahay de nin waxadaya inaad tahay adiguba sooma aragti haddaad hareeraha fiirfiirisa markaad qaadaysood hoosta gashatana haddii aadan wax samaynaynin heellahdan wax ku jira ma habeenkii loo tumaa baa la yidhi haddaan wax ku jirin oon dan kale lalahayn oo waxuun lagu dhex qarinaynin maalintii maalatumo maxaa habeenkii uun mugdiga loola egtaa haddii aadan wax qaldaynin oodan xumo samaynaynin maxaad hareeraha u fiirfiirisay oo in lagu arka ad uga yaabi maalka muslimkii haddii qof muslima helo inuu maalkii xifdiyo asalkuu noqdo qofkii lahaa in la gaarsiiyo taasa asala haddii aadan rabin inaad yaahdiso ood raadisa dadkii lahaa oo aad naadisaadan doonaynin xadiidka zayd ibni khaalid baa ku qabsano man aawaa daallatan fa huwa daallun maa lam yucarifhaa shardigaa waa kuu xiray oo in kaana calaa hiqatin min alqiyaami biha hadduu ku kalsoon yahay xaqeedii iyo inuu marin doono iyo axkaamta lasoo sheegay waxay yidhahdeen waxaa kaloo shardi ah inaad baadidani in loo cabsanayo baa shardiga markay sunno noqonaysa qaaditaankeeda runtii waxaana qaadaysa waa maal nafta bini aadamkii iyo maalkana wax badan bay isku dhodhowaadaanoo damacu waa badan yahay inaad ka baqaysa xoolahani qofkii lahaa inay ka lumaan ama waraabiya bahalla cunaan ama cid aan aamin ahayn qaado baa wanaagsan markaasay fiicnaanaysaa qaaditaankeedu asalna waxaa xadiidka nabiga alai sala slam saxeenka lagu wariyey ee nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam geela baadidiisa ka waran markaasuu wuxuu yihi maa laka walahaa geel baadidii adig maxaa faraha kuu geliyey macahaa xidaauhaa kabaheeda way qabtaayoo qodaxi dili mayso wa siqaauhaa weelkeedii biyihii iyo taangigii biyahana way wadataayo geelu 30 maalmood buu biyo ka maarmaa taakulu shajara geedahay iska cunaysaa dhirtaana way iska daaqaysaa xataa yaatiyaha rabbuhaa ilaa ninkii lahaa uga yimaado ninkii lahaana geela kama hare wuu soo raad qaadaa raadkeedu isku soo taagan yahay ninkii lahaa dhirtaana way iska daaqdaa biyahana way iska aroortaa sahaydeedii biyahana calooshay ku wadataa kabaheediina way qabtaa xayawaanka yaryarka oo dhanna way iska celisaa ariga baadidiisa ka waran baa la yidhi ariga baadidiisa wuxuu yihi ama adun baa yeelan ama walaalkaabaa leh ama waraabaa cuni macnaa haddaad ka tagtana waraabaa cuni haddaad qaadana ama ninkii lahaabaa kuugu iman ama wax kugu yimaadaba intaad weydaa adu ku intifaaci halkaasay culimmadu ku saleeyeen markay kala qaadayaan xayawaankan baadida eed qaadaysa nafleey hadduu yahay ama baadidu waxyaabaha yaryarka iyadu iska dhicin karta oo inta lasoo raad qaadaya sugi karta ma tahay geelii bay marka xaalado soo reebeen waxay dhahdeen geelu hadduu meel duura iska daaqayo weeye xukunkan laakiin hadduu magaalo dul joogo oo tuugtii oo dhanna magaalada ka agdhowdahay oo ninka ugu soo horeeya ay ushuu horey ugu dhufanayo ama qalanayo ama gadanayo taa haddaad uga baqayso waad qaadi kartaa si aad ugu xafiddo qofkii lahaa asalku waa maalka inaad xafiddo wey saa darteed labadaa sharti haddii la helo baadida qaaditaankeedu way wanaagsanaanaysaa kadib waidaa akhadahaa hadduu qaado wajaba calayhi waxaa waajib ku ah an yacrifa inuu garto oo aqoonsado 6 ashyaaa 6 shay oo ka mida waxa uu sidan leeyahay mualifku raximah allahu tacaala waxaynu leenahay sida saxiixa baadidu waa 3 qaybood maalka ah waxaan maal manfaco weyn galaba aan ahayn nimuu ka dhacay oo ka lumayna aanu daydayayninba kaas isaga yaahdiniyay naadin uma baahna marka gacantaada uu soo galaba adigaa iska leh oo hore isaga qaadan hadda halkaa haddaad ka baxday 5 shilin baad meeshaa dariiqaa ku aragtay 5 shilin nimay ka dhacdo hadhow jeebkiisa ka waayay curfigeenna dayday maayo oo xoolo uu nin daydayo oo waxoogay xataa uu ka yaraha walwala maaha
asalkeeduna waxaa uu daliilaba yidhahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray timir meel taalla waddada taalla markaasuu lowlaa annahaa min asadaqati la akaltuha haddaynan sadaqa inay noqoto ka baqayni waan iska cuni lahaa hal xaboo timira haddaba ninunbay ka dhacday cidi kasisagama tuurin ninkay ka dhacday hal timirihi hadhow xaba timira cidi dayday mayso waxa sidaasoo kaleeta xaqiirka ah naadana uma baahna sidee u ekaana uma baahna markaad sidaa u aragto iska sii qaado adoo beeraha laga soo galbaday oo waddadaad soo socotaad hal tufaaxoo dhacay baad aragtay ama hal camboo waddada kaga sii dhacay baad aragtay ama beeralaydii xabadii anya iyo xabad basaloo meel taallaad aragtay kuwaasoo kale lama naadiyo waxa saa u yaryar ciddii lahaydna daydayi mayso in la tabana maba badnaba haddaan laba tabi karin in badan baan la tabaynin ninkii taba ee waayey arki waayana uusan raadinaynin taasi waa nooca koobaad nooca labaadi waa waxaan maal badanna ahayn lagana yaabo saacad iyo maalin inuu yar xanuujiya ninkii lahaa waxooga yaryarkaa weeye kaana sida saxiixa ay jamaahiirtu qaabaan 3 maalmood iyo agagaarkooda baa la naadinayaa saddexda riwaayaadka xadiday waa daciifa weeye hadba inta la leeyahay waxaan qofkii lahaa amuu raadinayaa maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 baa la leeyahay war ayuu wax ka lumay wixii ka dambeeyana ninkii lahaa kaba quusayoo berri xataayo wax ka lumay hadduu maqlo dan ka geli maayo kuwaasina waqti dheer uma baahna xoolaha uu ninkii lahaa muddo raadinayo xoolaha weeye xoolaha la leeyahay 60 arrimood aqoonso wicaaha weelka ay ku jiraan hadday xoolo weel ku jira yihiin oo wicaheeda weelka ay ku jirtaay baa lagaa rabaa wa cifaasahaa waa isla weelkeeda wicaa iyo cifaas labadaba weelasheedaa la yidhaahdaa wa wikaaha xarigeeda hadday wax ku xirxiran tahayna ama quful yahay ama xarig yahay waxay ku xiran tahayna isagana si fiican baad u fiirin wa jinsahaa jinsigeediiyo nooca ay tahay alaabtani ma dharbaa ma lacagbaa ma dahabbaa maxay tahay alaabtani noocay tahay hadday lacag tahay lacagtu waa noocee ma waraaqaa ma shilimaadbaa iyadana si fiican baad u fiirin wa cadadahaa tiradeeda waa imisa wa wasnahaa inta kiilo ay tahay hadduu wax la miisaamo yahay intaba inaad aqoonsataa lagaa rabaayo labadaa intaa tilmaamaha waxaa isku ururiyey xadiidu ubay bni kacab iyo xadiidu zayd bni khaalidin iljuhaniyi radia allaahu canhuma wa ardaahumaa oo labadaba sixaaxa ku yaalaan intaa nabigu gara uu leeyahay aqoonso waxaa looga jeedaa hadhow markaad daydayaysa dadkii lahaa ninbaa tilmaaman doona dee tilmaantiiba haddaadan garanaynin seed ku ogaan alaabtiina ma wadi kartid oo meel walba lama istaagi kartid waxaad leedahay war alaabiyay ka luntay saaca waxbaad ka tilmaantay nin baa ku yidhi ana iga luntay waxaad odhanaysaa hadhow say u ekayd waa inuu kuu tilmaamaa haddii aadan tilmaanteedii garanayninba dee tilmaanta uu qofku sheeganaya waxba ka faa'idi maysa walaad tilmaamihii garanayso qofkii sheegtay alaabtaasaa iga luntay bal tilmaan aad tidhaahdo markuu tilmaamo inuu tilmaantii helay iyo in kale waa inaad garanayso cumuuman waxay yidhaahdaan waxyaabaha alaabta lagu tilmaami karoo dhan ee tilmaantuna ay ku kala soocmaysa qofkan waxaan inuu qof ogyahoo garanaya iyo qof aan garanaynin baa lagaa rabaa xoolo nool hadduu yahay neefku ma geelbaa ma aribaa ma lo'baa ari hadduu yahay ma ari cadbaa mise idihii weeye da'dee weeye midabkee buu leeyahay calaamada muxuu leeyahay sumad lugaha iyo dhagaha iyo caloosha iyo simaha maxaa kaga yaalla astaamihii iyo sumadihii xoolaha lagu kala dhiganayay intaba inaad garanayso wey oo markaad tuulada iyo daabiyadda timaado ayuu neef geela ka lumay anigu iga lumay intee seebuu ekaa da'dee buu ahaa sumad nooceea buu lahaa inaad waraysato wey si aad u kala ogaato qofka iska baadibaaba la sheegay marka la yidhaahdo inuu baadidaa iska qaato rabi iyo ninka baadi ka maqan tahay intaba inaad aqoonsato wey wayaxfaduhaa
وحفظنا في حرز مثلها iyadoo kale meesha lagu xifdiyana waad ku ilaalinaysaa alaabtiina xoolihii xifdiisa way maalkii haday xoolo nool ahaayeen xoolaha nool sidii loo ilaalin jiray u ilaalin habeen iyo maalin daaqsin iyo galbashaba haday xooluhu lacag iyo wax ahaayeen halka lacagaha lagu xifdiyaad ku xifdin haday alaab kala ahayd meesha alaabtaada aad ku xifdin meel ay ku badbaadaan xoolaha inaad dhigto waayo markaad qaaday laga soo bilaabo waa ammaano gacantaada ku jirta ilaa ama ninkii lahaa ay uga noqoto ama si sharci adiga ay kuugu soo wareegto uma idaa araada hadduu doono tamallukahaa inuu yeesho oo xoolahan inuu dadkii lahaa raadiyaa laga doonayaa markaa carafahaa sanatan sanad buu yaboohinayaa marka uu leeyahay hadalkan waxaynu kala qaadaynaa baadida laba qaybood luqatatu alxaram xaramka baadida laga helo iyo inta kale dunida baadidii laga helo laba xukun bay kala leeyihiin luqatatu alxaram waana madhabka imada shaaficiyada nusuustuna tilmaantaye cimrigaaga intaad nooshahay lama milkin karo xaramka abalaabta laga heliya baadida sina looma milkiyo saa darteed adigu waxaa kuu fiican hadda meelo ammaanaadka lagu xareeyaa jire inaad iska geysaa ku raba waktigan aan joogno laakiin 10 sano haddaad hayso baadi aad xaramka ka soo qaaday milkii kari maysid 100 sano haddaad yaboohisood naadiso baadida inta kale haddii aad sanad naadiso sanad haddaad waryay ka luntay haddaad dhacdo wax sheegtana aada weydo fain jaa saaxibuhu hadduu yimaadana isagaa qaadan wailaa fahiya maalullaahi yu'tiihi man yashaa waxoola ilaahay oo cidduu doonuu siiyaaye waa deeq ilaahay iska qaado laakiin maalintii ninkii lahaa soo baxa unbaa dandhabi uma idaa araada hadduu doono tamallukahaa inuu yeesho carafahaa sanatan sanad buu naadinayaa oo yaboohinayaayo waryay ka luntay leeyahay calaa abwaabi lmasaajidi masaajidda irdahooduu ka istaagi ilan masaajidka gudihiisa lama ogola baadi in laga naadiyo hadda baadidii xoolahaan ku jirnaa ta bini aadamka ma laga naadin karaa waan baabulaqiid haddaan gaarna insha allahu tacaala iyo xasuusiya ama habeen dambe ku soo dara haddii alla yidhaahdo haddaba baadidii masaajid gudihii ninkii ka naadiya nabigaa wuxuu yidhi waxaad ku dhahdaan calayhi salaatu wasalaam laa raddaha allaahu calayk ilaahay kuuma soo celiyo kuma siiyo baadidaa alla kuma tuso maxaa yeelay fa ina almasaajida lam tubna lihaada meel baadi laga naadiyaa maaha masaajidu abwaabi lmasaajid baa hadda masaajid gudihiisi ma aha banaankaad istaagi waxaana looga jeedaa meelaha tajamuca dadku isugu yimaado baa tegiyood ka naadin wa fi lmowdici aladii iyo goobtii wajadahaa fiihi uu ka helay waase goobta uu ka helay meel la degan yahay hadday tahay haddaad meel tid iyo dariiq duur cidloo la deganayn aad ka heshay tegitaankeedu wax macnaa samayn maayo inaad meel cidlaa tagto waryay baadi ka luntay aad ka tiraahdo de marka dambe alleelaha anigaaba isla hadlay inaad dhahdo ninkii gelayaa la jooga ora halmaame ila anigu buhayin sideeda inaad noqotay yaad la hadlaysaa dad baa leh baxdidan inay helaan baa laga yaabaa waa meel dad jooga inaad ka naadiso haddaba wa fi lmowdici goobtii alladii wajadahaa fiihi uu ka helay waa hadday tahay meel ay dad joogaan dadna laga helayo ee alaabtan ka luntay waad ka dhihi fain lam yajid saaxibaha hadduunan helin hadda wasaa'ilkii tajamucaadka ee jiray waa weeye xilligaa maahane haddoo kale waxay leeyihiin joornaalladaad ku qori idaacadahana waad ka sheegi alaab sidaa yay ka luntay baadi xoola yay ka lumeen cidday lacagi ka luntay lacag kinyaana ay ka luntay ha soo sheegta siday ahayd meelaha boolisyada la geeyey booliska laftoodu hadday aamin yihiin oyna dhacaynin haddii meelo ay jiraan laga naadin kara dadka warkii in la gaadhsiiyo weeye muhimaddu sanad baad naadinaysaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi uma carifhaa sanad naadi fain lam yajid haddaanu helin saaxibahaa ninkii iska lahaa kaana lahu wuxuu xaq u yeelanayaa an yatamallakahaa inuu milkiyo bisharti damaani
iyadoo shardi ku xiran tahaya inuu damaanayo. halkan mualifku arrinta uu sheegay arrin sunanka ka mida oo waajibaadka cinda shaaficiyati ka mida buu ka tegey. waa haddii aad baadidii hesho markhaati inaad u yeesho ma waajibah mise waa wanaagsan tahay. xadiidka daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa inay waajib tahay, laakiin madhabka shaaficiyadu istixbaab iyo sunna ay ku xambaareen. waana xadiidka ciyaad ibni ximaar ee uu nabigu ala alay salaam man wajada luqatatan falyushhid daway cadlin, ninkii baadi qaadow laba markhaati u yeel baadidaas, walaa yaktum walaa yacbad, yuunan baadida qarin, markuu naadinayana yuusan ciyaariya kaftan ka dhigin ee si dhaba ha u naadiyo. fain wajada saaxibaha, hadduu ninkii lahaa helo falyaruddahaa calayhi ha u celiyo, wailaa fahuwa maalullaahi yuutiihi man yashaa, waa maal ilaahayo ciddii doonayso. imaam abu daauud baa sunankiisa ku wariya xadiid saxiixa wey. xadiidkaasi wuxuu tilmaamay inaad markhaati geliso. waxay dhahay culimmadu xikmadda ku jirta waxaa weeye labaad arrimoodba. kow, aduu naf aadama aad tahay oo ajal leh, xoolihii oo gurigaagii iyo dadkaagii iyo hantidaadii ku dhex jira baad dhiman kartaa. haddaba waa inay jiraan dad marag iyo markhaati ahoo caddeeya xoolahani inaadan lahayn ee baadi aada haysay tahay. midda labaad waxay dhahaan adiga oo noolba naf iyo shaydaan baa isku lamaan. berri shaydaanku wuxuu kuu qurxin karaa haddaadan markhaati u yeelin, warniyo maxaabad ka sheegi maa iska haysatid. laakiin haddaad markhaati u yeesho baabka waswaas badan baa kaa xirmiyo, warniyo haisceebayni waa lagu yeeso dadkiiyo shalay adigii markhaatiga u yeelayso maaha. berri baa la dhihi ninkii baadidaan markhaatiga ka ahayn hoos buu iska gashaday. marka baabka waswaasu shaydaanka inaad iska xirtaa fiican, oo laba markhaati u yeeshoo tiraahda alaabtan waa baadi waan soo helaya ogaada. waxaa waajib ku ah haddii uu xanuun dareemana inuu ka dardaarmo alaabtii ou yidhaahda waxaa baadi bay ahayde ha laga warqabo. waxaa kaloo laga doonayaa ninka ammaanada haddaba haya baadidaa haddii aada isticmaasho ood milkido oo maalin damba ninkii lahaa soo baxo, hadday iyadii joogtana iyadii buu leeyahay. hadday iyadii intaad gadday ama aada cuntay ee kugu tagtayna dandhagu xoolihiisii buu kugu leeyahay. ay qof muslima oo xoolihiisa adiga ay gacantaada ku jiraan ama kugu tageen isagiina taagan yahay, qof muslim oo xoolihiisa biduuni ridaa nafsihi lama qaadan karo. isaga maadaama uusan raalli ka noqonin oo la helay inaad bixiso wey. halkan wuxuu yidhi haddaba haddii aada weyda ninkii, hal masaley culimmadu isku qabteen waa mid hala xiriirta. alaabtii baad naadisay, tilmaanteedana aqoonsaa lagu yidhi. nin socdaa ku yimid oo niyo anay alaab iga luntay ku yidhi. waxaa tidhi tilmaan uu ku keenay tilmaantii say ahayd buu ugu keenay. laba mas'alaa ka dhalatay. horta ma kuu bannaan tahay inaad u dhiibto mise inaad maxkamad iyo markhaati keensa tidhaahda wey. asalka fuqahadu waxay isku raacsan yihiin haddii adiga aada aaminto tidhaahda aleelahay ninkani waa ka daacad, haddaad ku aaminta ninka markaad eegto waad siin kartaa. waxaase kuu bannaan inaad tidhaahda damiinkeen, berri warkaa hadduu wax ka soo noqdo cid ka fiilaya damiinkaa noqota oo mas-uuliyaddaada qaadata inaad keento wey. taasi way bannaan tahay itifaaqan. kalsooni darteedna inaad damiin ka qaadata way kuu bannaan tahay. haddiise ninkii tilmaantii oo dhan uu keeno adigana aada ku qanci weydo oo tiraahda ninkani amuusan lahayn, malqasab bay kugu tahayoo waajib inaad dhiibto. haddiise uu ku soo dacweeyo oo qaadiga kuu keeno baadidaydii ninkana haya waa tilmaanteediina waan gartay wuuna ii diidan yahay uu ku yidhaahdo, qaadigu ma kugu qasbi karaa inaad siiso? waxay yidhahdeen haddaynan jirin calaamad iyo astaan muujinaysa ood cuskan karto. waxyaaba badan baa keeni kara. aan laba tusaale ka sheega marka. tusaalayaasha keeni kara ninka tilmaantii baadida inuu sheego oo uusan lahayn.
tuhunkana keeni karta. tilmaanta midda koowaadi waxaa weeye in qofkani xogta uu helay oo ku tuhunsan tahay dad reerka iyo gudaha ah inay shaqo la qabteen oo waxoogay la soo siiyey tilmaanta dad gudaha ana ay heshiis ka dhaxeeya saadaho inoo soo qaado hadhow waxaa isku celceshana oo qaybsanna tuhuna waa iman karaa. waxaa labaadoo iman karta ninkani inuu awliyad sheega duula la shaqeeya yahay. dad baa jin ku shaqaysta ay uga soo waramaan guryaha dadka. waxaa laydiin leeyahay guryaha markaad gelaysaan bisinka qabsada, shayaadiinta kuwan u shaqeeya haddaydan bisinka qabanin waa idin raaci oo gurigiinay uga soo warrami. saa darteed baa markaad soo socoto buu usii sheegaya hebel baa soo socda waxaasuu rabaayo waxaasuu wataayo jabka waxaasaa ugu jira ku dhih. waxaana waa wax la sameeyo oo caadiya. nin kastoo jimanka la shaqaystana wuu yaqaan. jinka la shaqaysigiisuna waa xirfad la barto oo kutub laga qoray oo taxdiiruljaan iyo taxdiirularwaax la yidhaahdo wey. awliyanimo maaha waxani. arrintaa waxay qabsatay Xajaaj ibn Yuusuf athaqafi baa waxaa lagu yidhi ciidanka waxaa la socda nin wax allaalay waxaad meel dhigatay iyo waxaad rag ku wada hadashaan ba idin og. markaasuu yidhi balii keena. waa loo keenay. wuxuu yidhi warma saasa waan oghay waxay qasoon ma jiro. hebel baa is aragteen saasaas dhahdeen halka alaabtaasaa kuu taalla halka alaabtaasaa kuu taalla. sug buu yidhi kaadi intuu dhagax soo qaaday oo tiriyey hoos ugu foorsaday oo tiriyey oo gacanta ku lahaa buu yidhi ii sheeg imise wey. markaasuu yidhi waa intaas. sug buu yidhi haddaba mar saddexaad baan ku tijaabin. intuu soo qaaday buu yidhi sheeg isagoon tirinin. markaasuu garan waayey. waa ku gartay buu yidhi jin baa ku shaqaysataa ila tirinaya markaan tirinayay markaanan tirinna uu garan waayey soo maha. khaainka jin buu la shaqaystaa ee garaaca wiy mise dila wiy wuxuu yidhi ma qaano. marka ninkii fannigaa wax ka yaqaanaa garan. rag baa rag la shaqeeyaa. haddii ninkan waxa aad ku tuhunsan tahay ragga waxyaabaha ka agdhowna uu yahay ama awliyanimo ha sheegtay wax kale ha kuu sheegtee oo tidhaahda ninkan duulal buu la shaqaystaa alaabta isagu inuusan lahayn oo jin usoo warramay baan ka shakisanaya haddaad tidhaahdo waa shaki muctabara wey. labadaa midna haddayna jirin wax astaan iyo calaamad aad ku muujinayso ood uga shakiday ninkan haddayna jirin tilmaantuu sheegay ma lagugu qasbayaa inaad dhiibto. cinda shaaficiyati la fuqahada shaaficiyadu maya oo waxay leeyihiin dhowr sababoodba. xoolahani waa maal. ninkana muddaci weeye wuxuu sheeganayaa isagu inuu leeyahay. muddacina waxaa laga rabaa qof wax sheeganaya. kitaabu dacaawa walbayinaat abwaabteedana ugu tegi doonaaye albayinatu cala almuddaci markhaati ha keensado. tilmaamo la sheegayna markhaati ma aha bay yidhaahdeen. waxay yidhahdeen saa darteed ninkan xoolaha hadduu sheeganayo waa inuu markhaati iyo caddayn keensada waa lagu xiri karaa. midda labaad waxay leedahay xoolahan intaad haysa ammaano wey. ammaanona waan kuu tilmaamay qasab ma aha inaad ku siisan ninkii lahaa. ammaanooyinkii haddaad yar kala garan weydo oo mid uu kuu tilmaamo oo tilmaantii mid la hesho inuu si kale u arkay waxbaa dhici karee tan inaad siisa ma waajibba waxay dhaheen maya caddayn iyo markhaati ha keeno. labadaba inaad dhiibto waajib kuguma ahay shaaficiye qabaan laakiin qowl daciifa wey. haddii astaan looga shakiyo muctabara aynan jirin daahirka nasku wuxuu sheegayaa inaad siisa inay waajib tahay. imaam muslim baa fii saxiixii min xadiid ubay ibni kacab wuxuu ka wariyey haddii uu ninkii lahaa yimaado haddii uu qofkuu yimaado yukhbiruka kuu sheegaya bicadadihaa wa wikaa'ihaa wa wicaa'ihaa. hadduu qof yimaado tiradeedii weelkeedii xarigeedii tilmaanteedii kuu sheego alaab saasa iga luntay ku yidhaahdo nabiga wuxuu yihi faacطiha iyaahu si ninkaa xoolaha ku wareeji. haddaba sifadii haddaan wax lagu tuhumo jirin daahirka nasku waxaa weeye in lagu siiyo inay waajib tahay. madhabkeenu masaladaa daciif weeye waa lagaga xoog badan yahayoo daahirka naskee saxiix muslim way ibni kacb xadiidkiisii ahaa baa xagga kale ka maray maalikiyadii fuqahada kale qaar ka mida ay qabaan. taasi waa baadidii. alaabta la xooray kuma jirto. maalka banaanka laga qaaday waa laba qaybood. maal daahirkiisu ay tahay qofkii lahaa inuu ka lumay
iyo maal daahirkiisuba in la xooray ay tahay. hadda guryaha oo kale marka la iska bedelayo alaabtii guriga jidkaa lasoo dhigaa soo maa. haddii hadda maanta aad aragta xaafadda agteeda alaab guriga kuraas fadhi iyo sariiro jiifiyo jidka lasoo dhigay, ma alaab luntay bay u eg tahay mise alaab dadkii lahaa iska soo saareen bay u eg tahay? alaabtaasi ma lumin. haddii aad aragto gaari meel cidla intii lagu tuuray meelihii qashinqubyada la geyn jiray ama meelaha gawaarida lagu tuuray intii la geeye laysaga soo tegey, de wax la tuuray wey. waxaa la tuuray ninkii qaataa iska leh, baadina ma aha, xukunkeedana ma laha. xukmu daallana ma qaato. de waxa ninkii lahaa markuu banaanka ku tuuray waxay ka dhigan tahay inuu ka tanaasulay milkiyadeediiyo lahaanshaheedii. mar hadduu iska tuuro milkiyadii ka tanaasulayna qof kasta oo qaataa iska leh, ama xoola nool ha noqoto ama alaab ha noqoto. marka xukmu daalla ha ku dabaqina, xukmu daalla ha ku dabaqina alaabta lasoo tuuray ee banaanaha iska taalle ee dadku ay iska soo saareen, ama qofkii lahaa kasuu uga tegey. alaabbu waa la socday, waa la qaxayey, alaabtii culayskeeduu qaar wadi waayey, wadaduu iska dhigay wuu isaga tegey, ninkii qaataa leh waa ninkii laga tanaasulay wey. waluqatatu baadidu calaa 4 adrubin 4 qaybood wey. axaduhaa midkood maa yabqaa wax jiraya cala dawaami weligii, fa haadaa xukmuhu taa aan soo sheegnay baa xukumkeedii ah. waxaan isagu fasaadaynin, dhar buu noqon karaa, lacag buu noqon karaa, alaab kaluu noqon karaa, wuxuu noqon karaa xoolo nool buu noqon karaa. kuwaasoo kaleeto saan soo sheegnay baa xukum ahaan loola dhaqmi. wathaani nooca labaadi maa laa yabqaa waxaan jiraynin weeye oon joogiba karin, ka طacaami ratbi cunto qoyan wey. fa huwa mukhayarun, cunto qoyan weeye. safar baad daba socotay, jidkaad haysay, jawaan baradha oo ka dhacay baad aragtay. jawaankani hadduu xoolahani xoolo badan yihiin, xoola haddaad meel dhigtood xifdi tiraada jiri mee berribuu qurmi see la yeeli marka xoolahaas. horta markay gacantaada soo gashay haddaad qaadda ammaano wey. xoolaha ammaanadeeda haysana xifdigoodii iyo badbaadinteedu waajib wey, xil baa ku fuulay marka. fa huwa mukhayarun waxaa la kala dooransiinayaa bayna aklihi inuu iska cuno, tilmaamaheedii intaad garato iska isticmaal, wa gurmihi inaad bixiso hadhow dankeeda. haddaad cid soo sheegata aragtana aada qiimaheedii siiso, aw baycihi inaad iibiso, wa xifdi amanihi lacagtiisa aad meel dhigto. ee laguma laha alaabtii soo qaad meel bakhaara iska geli ha qurunto, laguma ogola. waa inaad badbaadisaa xoolahaas. wathaaliu nooca saddexaadi maa yabqaa wax jiraya weeye bicilaajin haddii la daweeyo laga shaqeeyo. wax shaqo u baahan haddii laga shaqeeyana fiicnaanayo waqti dheer jiri kara, ka ruabi wey. in la gooyo wuxuu u baahay ruabku in la hagaajiyo, qaabkii timirta ruabka loola dhaqmi jiriye meelihii lagu xifdin jiro oo kale la dhigo. fa yafcalu lmaslaxata sida danay ku jirta buu samayn, min beycihi inuu iibiyo, wa xifdi amanihi lacagtiisana uu xifdiyo kow, aw tajfiifihi inuu ingejiyo oo wa xifdihi isagii markuu ingegee timir noqdo uu meel dhigo. labadaa khiyaar baad leedahay. su-aal baa halkaa ka imanaysa. hal la ingejiye marka la yidhaahdo hadday kharash u baahato yaa bixinaya? ingejintii dad xirfadii yaqaaniya kharash iyo ka shaqayn bay u baahatay, kharashkeedii yaa bixinaya? asaxiixu qofkii kharash hadday u baahato laba wej baa kuu bannaan. inaad ku sadaqaysatood ku tabarucda ka shaqaynteeda, waa xoolo muslino daryeel u baahani, iyo inaad kharashkii ku baxay daynaad ku leedahay ay noqoto, oo haddii aad adu yeelatana dee kharashkii adaa isku qaba. haddii ninkii lahaa yimaadana badbaadinta xoolahaagii kharashkaasa igaga baxaye isigaa tiraada, labadaba ku bannaan yihin. culimada qaar waxay yidhahdeen maya saanyaan la dhihin. waxaan leenahay markaad qaadaysay maxaad u qaaday?
haddii inaad yeelato aada u qaadayna oo hadafka ugu weyn wax kugu yimaada haddaad weyda qaado ay ahaydna limaslaxati nafsika aad u qaaday wixii kharash iska bixi alqurmu bilqurbi weye haddii aad u qaaday ninkii lahaa u xifdina isagaad ku yeelan kartaa haddaadan ku sadaqaysanin xoolaha fuqahada qaarna saasay qabaan waraabicu nooca afraadi maa yaxtaaju ilaa nafaqatin waak kal xayawaani nafleydii oo kaleete wax nafaqaya biil joogtaa u baahan wey huwa darbaani waa laba nooc xayawaanun xayawaan laa yamtanicu binafsihi isagoo aan isdifaaci karin fa huwa qofka mukhayarun waxaa la kala dooransiin beyna aklihi inuu cuno wa gurmi amanihi lacagtiisi inuu bixiyo neefkii ariga ah oo kale weeye inaad iska qalato qiimihiisiina aada meel dhigto tiraada iska naadi ciddii soo sheegatay qiimaheedii siiso inaad iska qalato way kuu banaanta waxaa loo ogolaaday bay yidhaahdeen dadka baadidan helaya waxaa laga yaabaa xoolo ma wada laha nin baan ariba lahayn baadidiina soo qabtay meel cidluu ka soo qabtay muxuu samayn neefkan arig keligii ma daaqo keligii lama raaco keligii lama hayn karo neefka daba waxaa kuu banaan war neefkan meelaad ku xafidood ku haysaba malehee ayr iska qaloo ku noolow hadhowna ninkii lahaa ee soo sheegtay lacagtiisi way kuu banaantahay aw tarkihi inuu daaye ha jooge wataawuci uu ku sadaqaysta bilinfaaqi calayhi inuu nafaqeeyo aw baycihi inuu gado wa xifdi amanihi lacagtiisa inuu xifdiyo kanoo kale waxay yidhaahdeen waxaa nafaqada biil ku dayn ku yeela loo dhihi waayey de muddadaaba kharashka ku baxay inuu lafaha kaba bataa laga yaabaa oo tiraahda ninkii waan ku ilaalinayay qabso intana waan kugu leeyahay oo nafaqo oo kaba badan qiimaheedii taasina wax xikmad iyo maslaxada kuma jirto qaybta labaadii waa xayawaanu weeye yamtanicu binafsihi isagu isdifaaci kara waxyaabaha yaryarka oo dhan ka adag sida geela fain wajadahu hadduu ka hela fi saxraa'i duur cidlaa taraka wuu iska daynayaa macahaa siqaauhaa wa xidaauhaa wey taakulu shajara wa taridu lmaa xataa yaatiyahaa rabbuha ilaa uga yimaada faraha ka qaad wain wajadahu fi lxadari deegaan iyo magaalo hadduu ka helana fa huwa mukhayarun wuxuu khiyaar leeyahay bayna alashyaai alaaثati saddexdii buu fiihi u leeyahay sababtoo magaalo markay joogta badanaa tuugadaa badan inta xadaysana way badan tahay haddiiba adigu aamin aad tahood xilkeeda ka bixi karto xoolihii muslimka amaadaa qaadanama isagaa yeelanaya xifdiba badbaadi bay leeyihin intaasina luqatadii xayawaanka iyo maalka baynu kaga baxaynaa faslun fi laqiiti ilmihii aadamaha ee baadida ahaa ee la helay laqiidka sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa ilmo yar oo meel cidlo ah laga helay oon aabbihii iyo abtirkiisiiyo ciduu yahay midna la garanaynin ilmuhu wuxuu noqon karaa ilmo banaankaba kas loo dhigayoo mara inta lagu soo duuduubay meelaha jidadka dhinacyahoodaa la dhigay allaqiitu baa la yidhahdaa xukunkiisa ilmo yaroo lumay buu noqon karaayoon hadli karin oon sheegi karin aabbihii iyo hooyadii iyo waxay yihiin dagaallaa dhaca waa la kala firxadaa ilmo baadi oo ordayaad heshay magaalada maalin kasta ilmaa la naadiyaaye ilmo yar baad heshay meellana waa kuu sheegi waayey cid daydayaysana waad weyday see la yeli ilmahaasoo kaleetaa laqiitu la yidhahdaa waa ilmo yar ama sabi lumay cid kafaalo qaadiyo cid aabbihii iyo hooyadiina aan la garanaynin baa laqiitu la yidhahdaa ilmo sidaa haddaad hesho xukunkii axkaamtii ka dhalan lahayd wey waayahan dambe maadaama ay badan tahay waxay ku habboon waxay ku fiicnaan lahaa keligii mar in muxaadaro laga qabto axkaamu laqiit ilaa maalin kasta hadda waayahan dambe ilmo mara ku duuduban baa dariiqa agtiisa lagu arkay bal hadduu meyd yahay waa munla-aasibe kan nool weeye waxa laga hadlayo waidaa wujida haddii la helo laqiitun ilmo la tuuray biqaaricati ariiqi jidka dhinaciisaa laga helay ilmo jidka dhinaciisa yaallaa la helay fa akhduhu in la qaado wa tarbiyatuhu la tarbiyeeyo wa kafaalatuhu la kafaalo qaadoo masruufkiisa iyo biilkiisa waajibatun weeye cala alkifaayati waajib kifaayo wey halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu kaga hadlay mas'alada koobaad ee la xiriirta ilmaha la helay
masalada koowaad ee ilmaha la helay la xiriirtaay waa in xukunkiisu uu yahay waajib qaaditaankiisu waxayna dhaheen cumuumu qowlihi tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwaa bay soo geli ilmahan in la badbaadiye naftiisana naftii aadamahoo dhan oo la badbaadiyey lamid tahayoo waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiican wey dadkao dhan nin nooleeyey ayuu la mid yahay laakiin hadday dadkii qaar sameeyaanna inta kale dembiga waa ka dhici hadday samayn waayaanna dembigu ka dhici maaye way dambaabi ayb marka aada qaadayso cinda alfiqhi shaafici waxaa waajib ah inaad markhaati u yeesho xataa hadduu nin khayr lagu yaqaaniyo wanaag aad tahay oo dadkao dhanba wanaag kugu yaqaanaan waxay yidhaahdeen waa waajib markhaati inaad u yeesho sababtu waxay yidhaahdeen labaa laga baqayaa marka koowaad waxaa laga baqi in la addoonsado ade baaburiqina waa ka hadli doonaa baan idhi markaan maqaamkeeda gaarnee xukum sharcigu uu soo nasakhay ma ahane waa xukum baaqi ah laga yaaba zamanada iyo maakinta qaarkood inaynan suuro gelin in waa addoon la yidhaahdo laakiin zaman iyo awqaati soo mari karto soo martay muslimiinta jirta lana filaya inay dib ka soo noqoto oo baaburiqigu addoon laleeyahay caadiya haddaan ilmihii la markhaati gelinin adiga waad iskaba dhiman kartaa dadkaagi iyo reerkaagii berri addoon aan leenahay weeye inay dhahaan baa dhici karta ilmaha laqiidka ee meel laga helayna asalkiisu xor wey diintiisu maxay tahay haddaa halmaamiyo xasuusiya dib baan uga hadli doonaa insha allahu tacaala masalada labaad ee iscilada ah waxay yidhaahdeen ilmaha nasabkiisaa lumaya haddaan markhaati loo yeelin markhaati marka loo yeelo waa la ogaanayaa ilmo la helay oon aabbihii la aqoonin oon hooyadii la aqoonin inuu yahay berrina dad hadday yimaadaan sheeganayo annagaa dhalnay leh xukum loola macaamilaa jira haddiise ilmihii reerka lagu dhex qariyo oon markhaati loo yeelino lagu sii dhexdaayo oo isagu duqaydani inay dhaleen uu moodo oo carruurtii ka yaryareydna walaalkood moodaan dad dumaroosan maxram u ahayn iyo cidaan dhaxal ka dhaxaynin iyo abtiruusan lahayn intaasoo mukhaalafo sharciga ka dhalan hadhow markuu weynaadana see loogu sheegi baa ka dhalan yaa u sheegi axkaam badan oo sharciga ka dhalanaysa oo loola macaamilayo xuquuquu leeyahay iyo xuquuq lagu leeyahaya oo ka duwan sidii ilmihii abtirkiisa iyo nasabkiisu uu sugnaa taasi aynan u lumin waa ilmihii markhaati in loo yeelo kadibna dariskiiyo reerku wada ogaadaan isaguna maalinkuu soo caqliyaysto xogtiiyo warka dhegtiisa ay ku duusho xogta uu ka warhayo wey markuu weynaadee 30 iyo 20 iyo dhowr gaaruun maalin sikadiisana u maqlo ummadda ka dhex carara maaha wixii yarida uu la soo qabsaday caadi bay ahaan ummadda dadkiisii inuu ku dhex noolaado laakiin qofku isagoo weyn luu yidhi reerkaad ku abtirsanaysa kuma dhaline dariiq cidlaa lagaa soo helay bigtuudha dadka uu ka dhex carari waxaa kaloo labaad buu yidhi walaa yuqaru laguma sugayo ilaa fii yadi amiinin nin aamina gacantii ma ahane ninkaad qaaday haddii uusan aamin ahayn ilmaha loo dayn maayo waa laga qaadi aamin hadduun ahayn waxaa weeye macnaheedu qof caadil ah oo cadaalad iyo kalsoonaan iyo ammaano lagu yaqaan baa ilmihii lagu aamini karaa xoolihii baaba nin aan ahal u ahayn lagu aamini waaye aadamuhuna waa min baabi awlaa wey waxay yidhahdeen 5 qolo qaarkoodna ay 6 ka dhigaan baa meesha ku baxday bay yidhaahdeen oon aamin ahayn asabiyu walmajnuun ilmaha caruurta hadduu ilmo soo qaadon qaan gaarin ama nin majnuun oo waalan oo ordayo uuda ku haya dariiqa ilmo yaroo meel yaalla intuu arka uu keeno markaaba waa laga wareejin waayo ahal umaba ahaba inay walaaye iyo mas-uuliyad qaadaan waxaa labeeya alsafiihu almaxjuuru calayhi ninkay safiihayaga xajri qadaaya ku dhacay xoolahaba lagu aamini waayey inuu ku tasarufo laga mamnuucaye inuu weli iyo mas-uul ka noqdo qof bini aadama nin shilin lagu aamini waaye naf aadama laguma aamini karee isna waa laga wareejin waxaa saddexeeyay yidhaahdeen alfaasiqu
nimaan xoolihii laga xajrinin laakiin faasiqa nin muqayila ilmo laguma aamini karo nin sigaariyo cabana laba midba waxba ma dhaamo nin qabqablo dagaal ana ka waran ninka faasiqa calaa kulli xaal isdaax laguma aamini karo waayo ammaanad iyo cadaalad ma laha waxaa afraadan lagu aamini karin addoon la leeyahay oo isagaaba la leeyahay mas-uul ka noqon weligiina xoolo dad mas-uul ka noqdo ma aragteen isagu xukmka tasarufaadka xukmulmaali weeye ilmahana waa ilmo xor ahoo aadami ah sidii xotaa darteed mas-uul kama noqon karo haddii laakiin xagga weligii sayidkiisa idan uu ka haysto sayidkiisay masaladu ku wareegay isagu ma hayn karo waxaa kaloo qaarka yidhaahdeen alkaafiru baa baxay haddii ilmaha waa muslin aan dhahno ilmahan haddii muslin uu yahay oo xukmulislaam diintiisa la siiyo nin gaala ma hayn karo waa in laga wareejiyaa intaasoo dhan waxay soo galeen walaa yuqaru laguma sugo ilaa fii yadi amiinin nin faqiira ka waran isaga niman wuxuu siiyaba haynin ilmihii ma loo dayno ma lagu aamini qowlaani fi lmadhabi madhabka shaaficiyada waa laba qowl asaxiixu hadduu aamin iyo caadil yahay lagama qaadayo isagu inuu iska soo wareejiye maahane waqiila sheekh dee loo qeeldaya haddii la yidhaahdo waqiila waa shaaficiyadan ka hadlaynaaye waa laga qaadayaa tiisii wmeelu geeyalaayahay laba qaawan isma qaadee kan xilkiisaba ma qaadi karee tiisa hala raftee kan ha laga wareejiye yihahdeen taasina waa cidda hayn lahayd iyo walaa yuqaru ilaa fii yadi amiinin faywj xaggee laga biilayaa ayb intaana xaggee laga biilayaa gaarin ilmaha yarkii ee la soo helay ma muslim baa mise waa gaal waxay yidhahdeen xukmu daari wuu raacayaa oo axkaamta ka dhalata way ikhtilaafu daarayn daaru lislaami wa daaru lkufri hadday daartu daaru islaam tahayna ilmaha muslim baa loo xukumayaa hadday daartu daaru kufrin tahayna ay gaalo yihiinna ilmaha kaafirniba gaal inuu yaha loo xukumayaa laakiin intabih mas'aladan markii baabulaqit laga hadlayo qaacidadii daarulkufri iyo daarulislaam ka ahayd sidii qaacidadu maaha baabkan waayo qawaacidda caamkaa fuqahada waa kan la yidhaahdo baab walbaba istinaacaad laga soo reebuu leeyahay waxay yidhahdaan cumuuman markay asal ahaan ka hadlayaan axkaamta lagu dabaqay daartu tabacu tahay hadduu axkaamulkufri ay haalib tahay iyadu maamushana daaru kufri wey saa darteed halka aan joognaayey hadda daaru kufrin bay noqon haddii islaam lagu maamulana daaru islaamin bay noqon bay yidhaahdaan laakiin mas'aladan baabulaqiit markaan joogna saas ma aha waxay yidhahdeen waxa la raadinayo waa qariino iyo calaamad asalkana nusuus waxay sheegtay ilmuhu islaamnimuu ku dhashaa ciddii dooniba ha dhashe oo wuxuu nabigu yihi kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati faabawaahu yuhawidaanihi aw yurasiraanihi aw yumajisaanihi faadan faabawaahu la yihi markuu dhashay kadib unbuu gaaloobaa wey laakiin markuu dhashay muslimnimo iyo fitra saliimu ku dhashay faabawaahu faaduna tacqiib gadaal wax ka yimid oo ilmaha lagu beeray wey xadiidka ciyaad ibni ximaarna waa kii ahaa akhlaqtu cibaadii xunafaa iyagoo saliim oo toosanoo nadiifan abuuray fajtaalathum shayaaiinu shayaatiin baa leexisay haddaba ilmuhu asal ahaan fitra iyo islaam buu ku dhashaye calaamado yaryar baan rabnaa bay yidhahdeen calaamadihii daaru islaam waxay xukunkeeda siiyeen meeshii muslimiin ku nool yihiin oo dhan ama magaaladaba ha noqoto ama xaafadaba ha noqotee xukmulislaam baa la siin mucaasiriinta qaar baa waxay ku dareen astaamo qaraa-in baa jira hadday muslimka iyo gaaladu alwaan kala duwan leeyihiin midabka uu leeyahayna waa la fiirin hadday calaamaad iyo muuqaalka iyo kala duwan yihiin ajnaasta oo kaleeto jinsiga uu yahay si nooca uu yahay waa la fiirin waa la tixgelin muhiimaddu calaamad iyo qaraa-in baa la raadinayaa halkaasaa diintiisa ilmihii la raacin soo galay mualifku yaa nafaqadii iyo biilkii ilmaha banaanka laga soo helay bixinaya fain wujida haddii la helo macahu maca alaqiiti ilmihii banaanka laga soo helay maalun xoolo ku duubnaa haddii la helo
anfaqa calayhi alxaakimu ninka waaliga iyo qaadiga ah kanda ka biilaya minhu maalkii maamulkaa loo keenayaa maalkiibay u haynayaan dadkii meesha dhigay mararka qaarkood inay xoolo iyo maal iyo dahab iyo kula duubaan cid kaluun allah u bixiya ay dhahaan baa dhici karta saa hadday tahay xoolihiisaa laga biili maamul iyo mas-uul baana loogu geyno iyada hadba inta loo baahan yahay ka siinaya arrintaa waa biitifaaqi fuqahaa fuqahada muslimiintu way isku wada raacsan yihin arrinkaas wain lam yuujad haddaan la helin macahu maciisa maalun xoolo uu ku duuduubnaayoo la socday ama uu watay haddayna jirinna fa nafaqatuhu nafaqadiisa iyo biilkiisu fii beyti lmaali beytu maali lmuslimiina baa lagu leeyahay taasi waa cala aladhari fi lmadhab qowlka raajixa weeye qolaa waxay leeyihiin beytulmaalka dadku uula siman yahay oo gaar beel uguma lehee laakiin waa looga dayman dayn lagu qoray noqonoo haddii ilaahay un weyneeyo oo waxyeesho lagu leeyahay uu iska bixiyo bay noqon laakiin waa muqaabilka aharka oo daciif weeye asalka aharkan waxaa loo daliishaday cumar radi allahu canhu wa ardaahu sida imaamu maalik muwaaiisa ku wariyey baa nin baa u yimid ilmo yar wada markaasuu wuxuu yihi ilmahani muxuu yahay markaasuu wuxuu yihi amiir almuminiina meel dariiqaan ka soo qaaday markaasuu yihi waxaad sheegaysa ma runtaaba adoorta kumaad ahayd nin la socday oo cumar isyaqiineen baa yihi cumarow ninkaana aqaanee nin fiican weeye warkaa ka rumayso markaasuu se haddaad tidhaahda wuxuu yihi allaqiitu xurun horta ilmahan waa xor buu yihi addoon mahe ogow ilmihii qaad calaynaa nafaqatuhu walaka walaauhu biilkiisiiyo nafaqadiisana annagaa bixinayna haddaan maamulkii muslimiinta nahay welihiisii iyo gargaarkiisii iyo garabsiintiisana adigaa iska leh oo xaggaagay soo jirtaa haddii aan beytulmaal jirinna laba xaalaa isku mida beytulmaal hadduunan jirin ama uusan waxbaba haysanin beytulmaalka laftiisaa faqiira oo wax lagaga biilaaba la waayey ama waxa yaalla meelo ka culus oo ka khatarsan oo dagaal lagu jiri iyaa lagu wajahay markaasi dadka muslimiinta ah haddii la helo qof dad ku tabaruco sadaqaystana waa wanaag haddii kalena daynun baa loo qaadiyo waa waajib dayn inay siiyaan intuu ka noolaada ka weynaanaya hadhowna xoolihii iska bixi hala yidhaahdo waxaan kusoo gebagabeynaynaa baabkani ninka la yidhaahdo ilmaha laqiidkeen aabbiyi hooye lahayn meeluu ku abtirsadana aan la aqoonin ama ilmo soo lumay oo la arkay ha noqdo ama ilmo markii horeba si sharci darro ah ku dhashay ha noqdo calaa kulli xaal waa ilmo aan la haynin ciddii dhashay iyo meeluu abtirkiisu gala aan la haynin ilmaha sidaasihi janaayadiisa haddii la dilo magtiisa yaa leh hadduu wax dilo oo si kamaa u dila caaqiladiisu wa-ayo hadduu xoolo ka dhintay yaa dhaxli ninkaasi haddii maadaama lagu yihi fanafaqatuhu fii beyti lmaali beytulmaalka iyo dowladda muslimiinta iska leh hadduu caaqilo yeesho khalad khata wax u dilo beytulmaalkaa bixin hadduu xoolo ka taga dhaxalana beytulmaalkaa iska leh haddii la dilo oo mag laga qaadanayana hantida dowladday ka mid too lagu dari cid gaar oo dhaxalkiisana ma aha ma jirto halkaasay masaladu ku salaysan tahay faslun fi lwadiicati cumuumka masalada dambe waxaa loo daliishaday xadiidka caaisha laa nikaaxa ilaa biwaliyin wاsulطaanu waliyu man laa waliya lahu ninkaan weli lahayna sulطaanka iyo dowladda u ah faslun ay fi lwadiicati amaanaadka la isu dhiibto walwadiicatu wadiicadu amaanatu weeye xoolaha lagu dhiibteed hayso ammaano weeye xukmu lamaanaadna way qaadataa wadiicaya waxaa la yidhaahdaa xoolo qofoo loo dhiibay uusan lahayn xoolo uusan lahayn oo qofka loogu dhiibay inuu ilaaliyo oo xifdiyo oo badbaadiyo isagoon badbaadintaa wax ku qaadanaynin hadduu xoolo ku qaadanayo badbaadinta baabulijaara wey laakiin tabarucan inaad qofka ugu hayso xoolahana adigu aadan lahayn baa wadiica la yidhahdaa waa ammaano aada hayso wayustaxabu waxaa sunno ah
qabuuluhaa inuu aqbalo liman qaama qofkii u istaagi karaya bilamaanati amaanada fiiha wadiicada ammaanadeedii iyo xaqeedii qofka gudan kara waa sunno wanaagsan bay yidhaahdeen. ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa wanaagga isu kaalmaysta bay ka mid tahay. qof xoolihii meeluu dhigtala inaad meel u dhigto waxaa weye culayskaa ka qaadana man nafasa can muminin kurbatan nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaamati bay soo geli. kurbo qofkii muslima ka fayda caawuu soo galay magaalada ama halkanu hadda joogaayoo meel buu u lugayn rabaa jidkaa in lagu baadhuu ka yaabayaa walaalo beri aan kaasoo doontee iyahay buu ku yidhi. ama safar buu gelayaa wuxuu ku yidhi waan soo noqonee jidka waan uga cabsan xoolahe walaalow iyahay buu ku yidhi. haddii nin walba diiday soo kurboon maayo qofki. man nafasa can muminin kurbatan dhe marka taasna waa u deliishadaan culimmadu. aayadduna way ammaantay qur-aanku fain amina bacdukum bacda faliyuaddi ladii tumina amaanatahu ammaanadii lagu aaminay gudo sideedii u gudo. ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha. saasaa lagaa rabaa marka ammaanadu gudashadeedii iyo qofka in laga qaada waa sunno. laakiin culimada qaar ba waxay yidhaahdeen haddii ay dad badan oo qaban kara jiraan bay sunno noqotaa. cid ninkii wax ka qabatoon adiga ahaynba haddaanay meesha joogin dadkii meesha socday ee uu gaari karayba adiga keliya meelaad dhigtahaya inta kale meelay wax dhigaanba ma hayaanoo nin walba oradkiisa loogama dambeeyo. waajib bay noqon markaas. oo maxaa igu waajibiyey ninkan xoolihiisa inaan qaado u badbaadiyo? waxay dhaheen xurmatu maali lmuslimi ka xurmati damihi. ninka ixtiraamku maalkiisu mudan yahay in loo ilaaliyo sida naftiisa loo badbaadiyay noqon lahayd. maanta naftiisu halaag looga baqayo badbaadintiisa waajib bay noqon lahayd. maalkiisu halaag looga baqayana badbaadintiisu waa waajib. halkaasi fuqahadeenu ku saleeyeen raxmat ullaahi calayhim. haddii ay cayn kugu noqoto waajib kugu noqoto ma dhihi kartaa ninyow xoolahan aniga bilaash kugu dhigi maayo ammaaniya wadiico ka dhigi maaye kollaba haddaa ku qasbanahay adna xoolaha u baahantahay in la ilaaliyo adna culays fuulayo maxaad isiin ma dhihi kartaa nacamhaa. baabulijaara waad u bedeli kartaa. isna ma diidi karo xoolaha in loo badbaadiye uu rabo waa nin ijaar iska bixin kara. adigana xoolihii iyo dadaalkii iyo rafaadkii isagu uu kari lahaa dusha u rido juhdigaagii bilaash ku bixi laguu qasbi maayo. baabulijaara waad u gedin kartaa iyadana. marka saas darteed hadday kugu caynowdaba baabulijaara isaga bedel haddaadan tatawucayni oo tabarucaynin. walaa yadmanu ma dandhabo ilaa bitacaddi inu ku xadgudbo maahane. waa qaacidadii ammaanaadka. masaladana waa ijmaac inuu caqdiga wadiicadu ammaano yahay iyo ammaano qofkaan ku tacadiineen xadgudbin inuusan dandhabaynin hadday fasaado ama ay dhibaato ku timaado. meel baad dhigtay lacagtaadii baad ku dartay waa loo soo dhacay qalaf baa laga siiyey laguma laha dandhow. laakiin waa meeshii iyadoo kale aad ku xifdisan jirta inaad geyso. tacadigu labuu noqon karaa marka. mid halkanuu ku ishaarayaayo haddii adigu aada dayacda mas-uuliyaddii ama fal adi aada samaysay ay waxu noqdaan xoolihii waa laguu leehay. nooca labaad ee tacadigiihii waatuu ku gebagabayn doono intii lagu yimaado isii lagu yidhaahdo haddaad sii weydo. goormay ammaano tahay marka? waxay ammaano tahay intaad caynteedii hayso iyadii intaad haysay ammaano tahay. haddaad ku tasarufto lacag buu kuu dhiibtay alaabbaad isaga gadato markuu ku yimaado aad sii sidee hadda isaga danaysaa tiri baabulqardi waddayni bay gashay. waa fii dimatika xoolahaa oo dhan hadday khasaaraan dandhow baa lagugu leehay. haddii alaab intaad ku soo gadato dukaankii kaa gubto ama lagaa dhaco lacagti waa lagu leehay. mar haddaad ku tasarufto tasarufku waa xaaraan biduuni idnin. haddaad ku tasarufto waadna dambaabi xooluhuna dayn lagugu leeyahay bay isu bedeli. ammaano maaha. iyagii intaad haysay meel yaallaan bay ammaano yihiin. hadduu ku idna inaad ku tasaruftana baabulwadiicaba way ka bixioo baabulqardi nin wax ku daymiyey buu noqon. xoolihii haddaba saa darteed
ammaanaadka lagu dhiibay sida curfiga hadda bunuugtu yahay oo kaleeto bankiga lacagaha akownkooda lagu riday bankigii aad ku ridatay iyo baraanjigii iyo faracii aad ku ridatay waa la dhacay oo lacagtaadi waa la dhacay ma dhihi karaan sababtoo markay saa u gashaba wayna kuu qoreen wayna ku tasarufayaanoo lacagtooda ay ku dari dayn wey wax kastoo la dhaca xoolahaaga waad ku leedahay ammaanadaha sababtoo way isticmaaleen dayn bay isu bedeshay daynna ninkii lahaa lagamana xado mana khasaaro aduu dimadaada ku leeyahy wax cayn aba ma lahayn qadiyada asbaabulamaanaat ha ku darina xaajooyin badan oo laysku qabsaday baa masalada naga soo galay wa qowlu lmuudaci ninkii wadaacada loo dhiibay ama culimmada qaarkood kutub qaarkood alwadiic ay yidhaahdaan maqbuulun waa la aqbalayaa fii raddihaa celinteeda cala almuudici ninkii u dhiibtay uu ku celiyey haddii maalinkii dambe labadii nin qoorta isla galaan lacagtaydii isi iyo sokaan ku siiyey ma aha ay noqoto haddaan anigii ku siiyey lacagtaadi maaha war imaadan siinin war alaabtaadii waan ku siiyey war imaadan siinin hadday maxkamada isla yimaadaan yaa warkiisa la qaadan qaacidadan waxay yidhahdaan masaladan waxay soo gashaa oo masaa'ilkay u yaqaanaan tacaarud اlasli wاdaahir asalku waxay ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak xoolaha adaa lagugu ogaa sow maaha ninkan inaad siisay cadaynka muddaci baa tahay albayinatu cala almuddaci baa lagaa rabaa asalku saasay ahayd daahirkuse waa ka duwan yahayo ninkani markii horeba aaminna waa ahaa xoolahana waa lagu aaminay ixsaan iyo tabaruc buuna ugu samaynayey ma jiraan wax kalifa inuu xoolihii hadda musuq maasuq iyo tuugo u bedelo ninkana laguma yaqaan isaguna abaal u galayo ixsaan u samaynayey saas darteed bay shaaficiyadu daahirkay hormariyeen walidaalika abuayib abari waxaa laga soo gooriyaa inuu yihi ninka warkiisa waa la rumayn lahaa hadduu yidhaahdo wixii waa dhinteen ama dukaankii tuugaa usoo dhacdayo taydii iyo mid kaleba way taadii iyo mid kaleba way qaateen haddii la yidhaahdo ama gaarigii isagoo garaashka ama guriga ku jira baa xalay tuugo timidoo xoog furi intay iga qaateen ama dhaxdii igu joojiyeenoo xoog furaha ku qaateen bay gaarigii xoogeen hadduu yidhaahdo waa laga rumaysan lahaa waan kuu soo celiyey baaba ka sahlanba tanna waa in laga rumaystaa buu leeyahy ninkan saaxibulmuhadaba mashaaqi shiraazina waxaa laga soo guuriyaa inuu yihi ninkani cayntani manfacadeeda buu cayntiibuu manfacada qofka danta ninka maaligu ugu hayay waan kuu soo celiyey dantaadii hadduu yidhaahdo ninka warkiisa waa in la rumaystaa